toban sifo oo aad ku kasban kartid inay dadka ku xushmeeyaan. haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe inoo saar adigoo mahadsan. मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक. waad dareemi kartaa xanuunka ay leedahay haddii bulshada aad la nooshahay aysan ku xushmaynin. waxaa kuu hayaa 10 sifo oo haddii aad ku dhaqantid aad ku gaari kartid inay dadka ku xushmeeyaan. nambarka 1 naftaada jeclaaw. hana ka cabsanin inaad u kacdo inaad difaacato waxa aad xuquuq u leedahay. talow maxaa ka wada waxaa xuquuq u leedahay? tusaale ahaan dadka waa inaad ka dhaadhicisaa inaad tahay qof jiro oo howlkar ah, mas-uul ah, kana gudbi kara caqabado badan, nafsadiisuna jecel. tan macnaheedu ma ahan inaad dadka soo hor istaagto oo hortooda isku faaniso. waxaa jiraan qaabab kale oo aad ugu sheegi karto dadka qofka aad tahay, aadna u heli karto inay ku xushmeeyaan. waxaa muujin kartaa qofkaad tahay ficil ahaan, sida waxyaabaha aad ku kaftamtid oo kale. in kaftanka badan aad iska yareyso, qosolka badan aad yareyso. meelaha aad aadayso waa inay yihiin meelo wanaagsan, meel xunjoog ha noqonin. nafsadaada markii wax laga weydiiyone si wanaagsan inaad uga faalootid adoo faanin. waxyaabaha social media aad soo gelisid waa lagugu qiimeynayaa, wax wanaagsan soo geli. nambarka 2 qaabka aad u hadashid. dad badan oo aan la xushmayn waad aragteen markay hadlayaan cid dhegaysato hadalkooda ma lahan. waa lagu buuqaa, waa la iska indhatiraa. si lagu dhagaysto iska ilaali luqad adag oo aan la fahmayn inaad ku hadasho, waayo dadka waxay dhagaystaan waxay fahmayaan. waxaad ka hadashaa dadka waxay xiiseynayaan oo ay jecel yihiin. ha ka hadlin waxa adiga oo keliya xiiseyso. nambarka 3 qof war badan. ha noqonin qof war badan oo maanta dhan iska hadla. noqo qof hadalkiisu miisaaman yahay si dadka ay ku dhageystaan halka mar aad hadasho. nambarka 4 ixtiraam dadka kale. noqo qof ixtiraam leh oo xushmeeya dadka si adigana lagu xushmeeyo. haddaadan ixtiraam lahayn cid ku xushmeynayso ma lahan. nambarka 5 xanaaq badan. ha noqonin qof xanaaq badan oo wax kasta ka xanaaqo. wax walba haddaa ka xanaaqdo waxaad gaaraysaa heer ay dadka kaftan iyo wax lagu ciyaaro ka dhigtaan in laga xanaajiyo. noqo qof xanaaqiisu yar yahay oo si sahlan aan ku xanaaqin. nambarka 6 baryo badan. iska yareey baryada badan. mahmaah hore ayaa waxay ahayd baryo badan iyo bukaan badan waa la isku nacaa, waayo bini'aadamka ma jeclo inaad wax weydiisato oo aad maanta dhan bariso. noqo qof isku filan. nambarka 7 ballanka adkee. qof haddii aad wax u ballanqaado u sameey waxaad u ballanqaaday ilaa lagaa dhaho qofkaas waa qof ballan leh. waxaadan awood u lahayn inaad samayso ha ballan qaadin. nambarka 8 markii lagugu qaldamo ha aamusin. tusaale, meel ayaad ka shaqaysaa, maamulka ayaa qalad kugu sameeyey ama isku daya inuu ku canaado. ha ka yeelin oo codkaaga kor u qaad. hana yeelin in lagu gumaysto oo lagugu kor socdo, si mar dambe lagugu qaldamin aad u hesho xushmad gaar ah. nambarka 9 u hadal qof laga gardaran yahay. haddaa aragto meel ay cadaalad darro ka jirto, isku day dadka laga gardaran yahay inaad u kacdo oo caawiso. dadkaas way ku xushmayn doonaan, xushmad gaar iyo qadarin gaar ayayna ku hayn doonaan. nambarka 10 sirtaada ilaasho. ha la wadaagin sirtaada qof walbo. waxa adiga khaaska ku ah adiga ayay khaas ku yihiin. afkaaga ha isku fashilinin oo ha isku liidin. waxaa hubaal ah 10 sifo haddii aad ku dhaqantaan inaad ka heli doontaan bulshada aad la nooshihiin xushmad iyo qadarin gooni ah.